calaykum dhagaystayaal qiimo badan ku soo dhawaada barnaamijkeena halkaas oo aan ku soo koobayno wararkii ugu muhiimsanaa ee maanta. Dowladda Ingiriiska ayaa ku dhawaaqday in dhalinyarada diida shaqooyinka ama tababarada laga joojin doono kaalmada cayrta. Tani waxay saameyn ku yeelan kartaa dhalinyarada Soomaalida ee ku nool halkaas, iyadoo la filayo in qoysaska iyo jaaliyadaha Soomaaliyeed ay taageero dheeri ah u fidiyaan dhalinyarada si ay uga fogaadaan dhibaatooyinka ka dhalan kara go'aankan. Hoos u dhac ku yimid dakhligii Itoobiya ka heli jirtay qaadka. Xukuumadda Itoobiya ayaa sheegtay in dakhligii ka heli jirtay dhoofinta qaadka uu hoos u dhacay. Sababaha ugu waaweyn waxaa ka mid ah canshuuraha ay dowlad goboleedyadu kordhiyeen iyo tartanka ka yimid qaadka ka yimaada dalalka deriska ah. Arrintani waxay sidoo kale saameyn ku yeelatay suuqyada qaadka ee Somaliland, halkaas oo sicirka qaadku sare u kacay isla markaana qaad aan sharci ahayn uu soo galay. Madaxweynaha Soomaaliya oo digniin ka soo saaray maalgelinta argagixisada. Madaxweynaha Soomaaliya ayaa shir gudoomiyay kulan degdeg ah oo looga hadlayay la dagaalanka maalgelinta argagixisada. Wuxuu faray hay'adaha amniga inay tallaabo adag ka qaadaan cid kasta oo ku lug leh maalgelinta falalka argagixisada, isagoo uga digay ganacsatada iyo shacabka inay la macaamilaan kooxahaas si looga hortago khataraha amni ee ka iman kara. Jubaland oo la wareegtay saldhigyo ay baneeyeen ciidamada ATMIS. Wasiirka warfaafinta ee Jubaland ayaa sheegay in ciidamada daraawiishta Jubaland ay la wareegeen saldhigyo ku yaala gobolka Jubbada Hoose oo ay baneeyeen ciidamada Midowga Afrika ee ATMIS. Wasiirku wuxuu sidoo kale sheegay in dowladda federaalka ay isku dayayso in ay kala jabiso ciidamada Jubaland, taas oo uu ku tilmaamay nasiib darro, isagoo ku baaqay in la iska kaashado dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab. Wararkan ayaa muujinaya xaaladaha kala duwan ee ka jira gudaha Soomaaliya iyo saameynta ay ku leeyihiin bulshada, gaar ahaan dhinacyada amniga, dhaqaalaha iyo arrimaha bulshada. Waxaa muhiim ah in la sii wado dadaalada lagu xoojinayo nabadda iyo horumarka dalka.